السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa macalin maxamuud cashkan waxaanu ku baran doonaa 10 eray aad muhiim u ah marka hore todobada inaynu isla sameeyno deedna saburadu waynu tirtireynaa saddex kale oo dheeri baynu ku dari doonaa hadii ilaahay insha Allah okay so erayga koowaad waa tough waa wax adag the exam was tough it means the exam was difficult or hard marka tough difficult hard dhamaantood waa isku wada micno yes erayga labaad trademark waxaa la yiraahdaa calaamada ama magaca uu registeraysan company-gan tusaale cilmi academy college buu registeraysan yahay hadii wadanka Kenya joogo hadii aad magacaas qaadatid oo adiga company-gaada u bixisid it means waxaad u gaftay yani company-gan magaca uu registeraysto so waxa lagu qasbaa inaad magaca bedeshid trademark marka waa calaamada ama magaca ama astaanta uu leeyahay company-gan ee uu registeraysan tributary waxaa la yiraahdaa wabi ku shubay wabi kale tusaale wabigan intaan ku soo socdaa mid kale intuu ka imaanaya handeen hal wabi oo weyn bay sameeyaan ama wabi weyn bay ku shubayaan taas ayaa la yiraahdaa tributary yes waa small river that is flowing to a big river trophy waa koob ka caadi shaah lagu cabo ma aha okay tusaale banooniga marka la ciyaarayo teamka markuu guuleysto koob baa la siiyaa yani team hebel waxay qaadeen Champions League ama Premier League ama League 1 trophy waa koobkaas la guddoonsiinayo tab waxaa la yiraahdaa waal weyn oo inta badan qofka tusaale biyihii baa halkan ka soo daadanayo uu dhex fariisanaya okay lugna halkaas saartay lugna halkan then uu ku qabaysanaya kaas ayaa la yiraahdaa tab hadii sawirkaas wax ka sheegtid horumarkiiga ka xunta okay waa sawir aad u qurux badan yes day macallimada taas ka dhaafo aan qaybta farshaxanka galaxta dhibaato ma laha anyways that's jokes tab waxaa la yiraahdaa marka baabkaas weyn biyaha lagu shubo tutorial waa inuu qofka ku tuso waxaan qaabka loo isticmaalayo adigu cashir inuu kaaga sameeyo ama guide yes tusaale hadaa yiraahdid maxamuud waxaad tustaa qaabka loo isticmaalo Krita ama Facebook waxaan ku soo duubay muuqaal oo tutorial la yiraahdaa marka muuqaalkaas uu ku hagayaa qaabka loo isticmaalo wax kan tweet waa inuu qofka wax ku soo post gareeyo application la yiraahdaa Twitter hadaadan Twitter aqoonin Twitter waxaa la yiraahdaa yani application dadka ay ku wada kulmaan sida Facebook oo kale waa hore Twitter baa la dhihi jiray laakiin Elon Musk markuu gatay waxaa loo bixiyay magaca X marka qof inuu wax ku soo post gareeyo Twitter-ka ayaa la yiraahdaa tweet so waa tirtirayaa si aan saddexda eray oo kale u qaadsiino good erayga saddexaad oo kale aynu ka darayno waa twinkle little star how I okay yes so hees aynu khaali jirnay markaynu nursery ku jirnay twinkle waa wax inay dhalaalaan yes ay dhalaalaan sparkle ama shine ama glitter English is a very rich language waa luqad qani ah yes markaad hadli rabtid hal eray isticmaalin marka waxa kani waxa loo isticmaalaa marka wax ay dhalaalayaan qaasatan yani stars for example hadaan ku dhaho the stars twinkle at night habeenkii way birbirqaan ama way iftiimaan yes hees waxaa jirta twinkle little star yani oo primary yani ku qaadi jirna twinkle sparkle shine glitter dhamaantood waa isku wada micno yes waxayna birbirqaan typhoon iyo waxa isku mid ah cyclone ama hurricane okay tusaale typhoon waxaa la yiraahdaa I don't know inaad taqaaniin marka la joogo يعني markii dabayl ay bilaabato ciid maxay sameynaysaa yani waxay sameynaysaa dabayl xoog badan oo ciid ah waa hore waxa la jiray hadii aad cusub ku dhex shubtid shaydaan kaba xiran arkaysa laakiin way waa kids so markii qasaas qaabkaas amal ay isku wareeganayso it forms this twirl and it's very powerful by the way aad bi xoog badan qaabkan u eg tahay markii inta aan ka keeno yes markii way wareeganaysaa inta soo aadaysaa way soo soconaysaa taas ayaa la yiraahdaa يعني typhoon hadii badda gudaheeda ay ka dhacdana waa hurricane oo aad bay dhibaato u keentaa hurricane yes ama cyclone waa dhigi kartaa marka hurricane cyclone typhoon dhamaantood waa isku micno yes okay erayga tobanaad u dambeeyo waa unveil waa wax indhaha laga qaado yani qof walba inuu ogaado reveal amal yes bulshada dhan ay ogaato hadii waxaad qarinaysid waxaan leenahay conceal waa qarin conceal marka waa opposite keeda okay this is the opposite
reveal iyo unveil waa waxayna banaanka keentid. Conceal waa waxayna